Adduunka koowaad, saynisyahanadu waxay u daabaceen xubinta taranka ee doofaarka waxayna soo celiyeen kacsigii. 3 daabacan maqaargalaha guska ayaa dib u soo celiyey shaqadii kacsiga bakaylaha iyo doofaarada adduunka ugu horeeya. Doofaarada dhaawaca soo gaadhay unugyadooda xubinta taranka ee helay qaliinka nooc ka mid ah kaliya ma gaadhin kacsi. Heerarkooda si guul leh u soo saarista faraca ayaa kordhay 25% ilaa 100%. Gusku waxa uu leeyahay mid ka mid ah qaababka shabakadaha xididada dhiigga ee ugu adag ee jidhka bini'aadamka. Muddo sannado ah hadda, cilmi baarayaashu waxay ka shaqaynayeen qaabka loo yaqaan Morbus achernosum, unugyada isboonjiyada ee usheeda dhexe, taas oo caawin karta kuwa leh cilladaha kacsiga. Daraasad ay dhowaan sameeyeen koox ka socota Shiinaha, Maraykanka, iyo Jabaan ayaa soo bandhigtay qaab jireed oo cusub oo soo saari kara kacsiga xayawaanka waaweyn ee nool. Si loo abuuro qaabka, cilmi baarayaashu waxay ku ekaayeen Achernosum morbus iyada oo loo marayo abuurista qulqulo ku salaysan hidrogel mid xooggan oo ku filan inuu u adkaysto cadaadiska gudaha marka qaab dhismeedku buuxiyo dhiig. Sawirada qaabka guska bilmimetic oo buuxa oo leh muuqaalka hore, aragtida dhinaca, iyo qayb ka mid ah. Kooxdu waxay markaas ku abuureen qalfoofka doofaarka ama unugyada endothelial bakayle, kuwaas oo ah unugyada ugu muhiimsan ee xididada dhiigga. Unugyada endothelial waxay abuuri karaan nidaamka taageerada nolosha la qabsan karo ee unugyada qani ku ah markabka, caawinta soo celinta iyo hagaajinta shaqada. Si loo tijaabiyo fikradan gudaha godka Morbus ee doofaarka Bama iyo bakaylaha New Zealand, cilmi baarayaashu waxay ku dhejiyeen hidrogel iyo daraasiin xayawaan ah oo leh cillado kac ah. Qaar ka mid ah bakaylaha iyo doofaaradu waxay heleen maqaargalaha guska macmalka ah iyada oo aan lahayn eryada, laakiin kuwa helay eryada iyo maqaargalaha waxay muujiyeen shaqo kacsi wanaagsan guud ahaan. Dhab ahaantii, natiijadoodu waxay ku soo dhowaadeen tii xayawaanka aan lahayn cillad kacsi. Natiijooyinkani waxay muujinayaan in implants ay si muuqata u wanaajiyeen soo kabashada shaqaynta, iyo isku dhafka eryada ayaa sii xoojiyey saamayntan, taasoo muujinaysa horumar la taaban karo oo ku saabsan dib u soo noolaynta unugyada iyo soo kabashada shaqaynta. Qorayaasha oo uu hogaaminayo injineer biology Senheng Wang oo ka socda Jaamacadda Teknolojiyadda Koonfurta Shiinaha. Bacriminta kooxaha waxay muujinaysaa dib u soo kabashada shaqada kacsiga iyo awoodda ay u leeyihiin inay soo baxaan, iyagoo soo jeedinaya dib u soo celinta nudaha godka ee ragga la daweeyey. Sawirada MRI ee 4 kooxood oo kala duwan oo bakayle ah, cillad, dejis, beerista, iyo Achernosum caadiga ah, caadi. Meelaha nabarada waxaa lagu calaamadeeyey goobada cad waxaana la arkay 4 iyo 2 usbuuc kadib markii la geliyo. Doofaarada helay qaabka tusaale ahaan, waxay muujiyeen heerar barar hooseeya qaliinka kadib, iyo markii khashinka hidrogel uu hoos u dhacay goobta cilladda, unug cusub ayaa si tartiib ah u sameeyey. Markii doofaarada loo oggolaaday inay tarmaan dhowr toddobaad kadib qaliinka, heerarka uurka ayaa ka kacay kaliya 25% kooxda cilladda ilaa 75% maqaargalaha iyada oo aan lahayn kooxda Doofaarada ragga ah ee helay maqaargalaha eryada ayaa si guul leh u uureeyey doofaar kasta oo dhedig ah oo ay la tageen. Jaantuska ee habka loogu beerayo moodalka cillad lagu sameeyey godka doofaarka ee Morbus achernosum. Qaabka cusub ee guska ayaa laga yaabaa inuu faa'iido u yeesho mustaqbalka daaweynta cillad la'aanta kacsiga bini'aadamka iyo cudurrada nabarada unugyada qoto dheer ee xubinta taranka, taasoo keenta kacsi xanuun badan. Waxa kale oo ay gacan ka geysan kartaa in la ogeysiiyo horumarinta xubnaha kale ee macmalka ah ee maraakiibta qani ku ah sida wadnaha. Hadda, horumarinta qalabka talaalka ee taageera dib u soo noolaynta dareemayaasha oo si wax ku ool ah ula falgalaan shabakadaha kaadimareenka iyo xididada dhiigga ee martida ayaa soo bandhigaya caqabad weyn. Qorayaashu waxay qoraan. Hababyadani waxay gacan ka geysan karaan in laga gudbo caqabadaha hadda jira ee hagaajinta dhaawacyada waaweyn ee xubinta taranka. 2 toddobaad kadib markii la geliyo, qaabka la rakibay ayaa oggolaaday soo kabashada qaabka guska caadiga ah ee doofaarka ee leh cilladaha Morbus achernosum inta lagu jiro kacsiga. Wareegyada orangeka ayaa tilmaamaya goobaha cilladaha qaliinka lagu sameeyey. Daraasadaha qaarkood waxay soo jeedinayaan in ka badan kala badh ragga dadoodu u dhaxayso 4 ilaa 7 ay la kulmaan cillad kacsi fudud oo dhexdhexaad ah, oo kordhisa da'da, iyo iyada oo xaaladdu tahay mid la daweyn karo, had iyo jeer maaha mid la daweyn karo. Natiijooyinkani waxay hoosta ka xariiqayaan codsiyada kiliinikada ee suurtogalka ah ee bilmimetic Morbus achernosum ee daaweynta dhaawacyada guska, ayuu ku soo gabagabeeyey Wang iyo asxaabtiisa. Intaa waxaa dheer, daraasaddan waxay horumarinaysaa codsiga bukaan socodka ee 3 daabacan ee xubnaha unugyada macmalka ah.